munaasabadani ay ku qalin jabinayaan ardayda dufcadda koob iyo tobnaad ee ka aflaxda jaamacadda ee magaalada Booramo oo tiradoodu dhanayd ku dhawaad 350 arday ayaa waxa ka soo qayb galay xafladaasi wasiirada wasaaradaha caafimaadka beeraha gudoomiye ku-xigeenada koobaad iyo labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale xubno ka tirsan golahaasi agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Soomaaliland xubno ka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland iyo waalidiinta ardaydani waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay أساسك جامعة ديلا يا مراحل كي كلا دواناي سومرتي قدوميها جامعة ديلا محمود حسين عقي نينتا سرية سوماليلاند أنا مركا كو هالليا مقع معمولكا يقوديغا سرية جامعة ديلا وحانسي شرعية إذا كو قدوسينا يا شهادوي كلا دوان المقيستين همباليو 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 inta kadib waxa hadalka qaatay duqa degmada Booramo ee gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Muuse Muruud gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Ali Xaamud Jibriil gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahaasi Saciid Mire Giire wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdillah waxayna yiraahdeen ayarka ahay oo dhowr iyo 40 cisho wax xafladii ugu horeysay ee jaamacad qalin jabinayso aan ka qayb galo maadaama ay wax badan ku soo fooleeyeen degmada Booramo oo dad badan soo degayaan oo wadoodii Jabuuti ka soo socotay ay ku soo socoto inaynu u diyaar galowno oo aynu noqono dad qaabeeya degmadooda horumarka socda qayb ka qaata iskaashigaas wax wada qabsiga si aynu u diyaarino Booramo lagu wada noolaan karo kulli hadalkii uu dhamaaday waxaan meesha lagu soo istaagay waa hambalyo kaliya number 1 ardaydaana leh hambalyada maanta iyo xalfadan oo waxa marti sharaf inta lagu timid waxa weeye farxadda inay ila qayb qaataan ee Hargeysa uga soo boqoleen marti sharaftan li sheegay magacaantooda iyo masabada ay kala leeyihiin soo waxaan leeyahay hambalyo 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 congratulations jaamacadda eelo waa jaamacadii labaad ee gobolka laga aasaasay waa jaamacad private ka register garaysan komishanka tacliinta sare waa jaamacad ku takhasustay waxyaabo badan marka maanta waxaan leenahay maamulka waxaan leenahay uu hogaaminayo Dr. Maxamuud waxaan leenahay hambalyo ardayda maanta qalin jabinaysana waxaan leenahay hambalyo waxaan ilaahay idinka baryayaa inuu dadaalka abdasheen iyo waalidku duba uu ugu guuleeyo anaguna xukuumad ahaan xaqiiqada marka la eego iyadoo culays dhaqaale jiro iyadoo duruufaha ay la qabto adduunyada culayska dhaqaale haddana maalin walba xukuumaddu waxay ku dadaalaysaa in dad cusub la shaqaaleysiiyo madaxweynuhu dowladda Soomaaliland wuxuu aad u mahadsan yahay in barnaamij dhan oo ah shaqo qaran la abuuray qof kasta oo jaamacadda ka baxa oo qalin jabiya oo jaamacadda Soomaaliland ka baxa ma qaadayaan xafiisyada dalka qof kasta oo wax barta oo jaamacad ka baxana ma noqon karo shaqaale dawladeed waxaynu u baahanahay inaynu ku shaqeyno dalkeena oo runtii afdal dihin oo u baahan inaynu ka faa'iideysano hadii aad ma hadaqaya bahda jaamacadda eelana waxa leeyahay sanad kasta wax cusub baa la soo kordhiyay laabka engineeringa ee la soo kordhiyay ee ciidda iyo tastiga lagu sameeyayna oo wax fiican oo jaamacadda lagu soo kordhiyay waan aad u kaabareeyo waxaan filayaa sanadkiisa kalena in horumarka la mid ama la tisqaadaya jiilka cusubna in lagu soo kordhin doono jaamacadda anagu ku hadlaya magaca shirgudoonka iyo magaca xildhibaanada waxaanu mar labaad hambalyeynaa kana wakiilka gudoomiye saaxiibkeena aan isku ognahay hambalyadan ka sido inuu ardada hambalyeeyo waxaan idin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waxaanu bogaadinaynaa runtii idinkana inaanu noo soo ducaysaan aanu ballan qaadno inaanu himiladiina loo doortay iyo waxaana laga filayaa aanu ka gudano gol ahaan soo wada duubo ardaydani ka aflaxday jaamacadda eelo ayaa waxa uu cadadkoodu dhanaa ku dhawaad 350 arday kuwaasi oo ahaa dufcadii koob iyo tobnaad ee ka aflaxda jaamacaddaasi waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Booramo